kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeennii wareysiga fanaanka iyo waayaha fankiisa barnaamijka alaaba waxay la socodsiisaan aniga Caasha Maxamuud Racda waana barnaamij toddobaadla oo toddobaadkiiba hal mar daawataan sidaad nooga barateen toddobaad walba waxaan idinku soo casuunaa mid kamida ama ku abtirsada bahda fanka toddobaadkan uu ka xiise iyo xamaasad badan yahay toddobaadadii hore waxaad ku soo daawateen abwaano kala duwan balse toddobaadkan barnaamijka waxa inoogu martiya fanaankii u horeeyay ee isla markaasina aynu oran doono waa fanaankii xariga ka jaray barnaamijka talow kuma noqon doona kuma sugaysaan Cabdikariin Maxamed ku soo dhawow barnaamijka wareysiga fanaanka walaal aad iyo aad u dhawahay waana ku dhawahay barnaamijka runtii aad baan ku salaamay waraadiga iyo hawlgallada TV Karsanba waana ku dhawahay waayahay Cabdikariin aad baad mahadsantahay runaantii anigana aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka igala soo qayb gasho isla markaasina aad noqoto fanaanka u horeeyay barnaamijka xariga ka jaray kulli waxaan maqli jirnay guri marka la dhiso wasiir ama madaxweyne ka jaray balse barnaamijkayga aniga wareysiga fanaanka iyo waayaha fankiisa waxaad noqotay fanaanka u horeeyay isla markaasina kamid ah fanaanintan anigu aadka u jecelahay kulliba hadaynu hadal ku bilowno daawadayaasha kulli fanaankii u horeeyay barnaamijka soo qayb galaa tahay hadal badan ku badin mayne waxaan soo qabanayna heesta u horeysa ee barnaamijkeena waxa inoogu qoran halkan hees la yiraahdo deeqa bal heestaasi laxankeeda iyo erayadeeda iyo qaabka ay u timi waxa heestaasi waxa weeye waa run deeqa la yiraahdo waa hees kamid ah heesaha aan runtii leeyahay aan khaas ku leeyahay aan qaado maadaama bulshadu inta badan ay ugu baratay heesa qaraama oo aan dib u soo cusboonaysiiyay heestaana gaar ahaan iska leh deeqa la yiraahdo waxa leh abwaan aan aad iyo aad u jecelahay runtii ahna walaalkay waxa leh abwaan Dhame Ismaaciil Cabdalle oo halkan aad iyo aad uga salaamay isagiyo familkiisa iyo reerkiisa iyo arrintiisaba heesta deeqa laxankeeda waxa leh aniga leh oo isku dayay waa fanaan macad xamiis meel xamiistamay laakiin waan isku dayday marmar baan isku dayday kow iyo laba maaha walaal aan jecelahay aniga in la soo saaray saal xamida laakiin hadana marmar bay kugu qabsanaysaa inaad saarto in adigoo joogii kugu taagan yahay inaad laxankiisa marka laxanka aniga iskale ereyadu waa abwaan Dhame Ismaaciil Cabdalle miiska macaan waxa ku laray oo tumay ninka la yiraahdo Allahumma salli ala Maxamed Bulshaawi ayaa ku laray isagana aad aan ugu salaamay isagii xaaskiisaba heestu doodo waayahay heesta koowaad ee barnaamijkeena deeqa iyo fanaan Cabdikariin yare ayaan oran doonaa daawasho wanaagsan ilaahay anigo dariiq maraaya alaxsada daruurta shawdeeqa weeyan adar ilaahay anigo dariiq maraaya alaxsada daruurta shawdeeqa weeyan شدمع جاحيليو درين عاشقي ما هلين تلبسو كالكعالكيو توخو هما أبارين شدمع جاحيليو درين عاشقي ما هلين تربسو كالكعالكيو وي دوخنا إما أبارين يرتو داعد ويان وامدين كدالتو دادي أنا كدورتو لكو دافع عن قلبي ديقا يرتو داعد ويان
waa midin ku dhalato da'di anaa ka doorto ku daabacan qalbigayga aanan doorkaa garanayn dibnaha uunu furay baan halkay doonaysay iyo danteedii u fuliyo aanan doorkaa garanayn dibnaha uun u furay baan halkay doonaysay iyo danteedii u fuliyo dalabkayga caashaqan wacad aan la dumin karin isla garanay danto doodiisu furan tahay dalabkayga caashaqana wacad aan la dumin karin isla garanay danto doodiisu furan tahay way yartu daacad weeyaan waa midin u dhalato da'di anaa ka doorto way ku daabacan qalbigayga yartu daacad weeyaan waa midin ku dhalato da'di anaa ka doorto ku daabacan qalbigayga haddaynu intaasi kaga soo noqonno heesta deeqa run ahaantii annaga iyo daawadayaashaba shucuurtooda aada u kicisay bal cabdikariin waqtigu horeeyaad istiri macnaha codkan aadka u macaan baad leedahay amaba hibo fanaannima ku jirta xilmaaya wallaahi horta runtii dee horta dadku fanaanba waxbuu ka hadlaa mid wuxuu lahaa waan soo galay siday iskuul tahay dee fanku iskuul maaha anigu runtii haddaa su-aashaada u soo noqdo fanka waxaan arkunan u dhex taagan wallaha markaan yaraantaydaan ahaa baa aad waxaan u jeclaa fankan waan iska jeclaa marka asxaabteyda rag fara badan oo iminkaan aad qaarna wada joogno qaar maqan yihiin baa aad aan iskugu dhex jirnayoo igu odhan jiray wallaahi markaan u heesaya ee aan iska ciyaarayno ee aan wada joogno ee waqtiga wada qaadano annagoo hadda aad u yaryar baa waxay igu odhan jireen wallaahi fanka aad baad ugu soo baxaysaa iyo heesaaga markaas man odhan jirin de waad noqonaysaa laakiin waxay ahayd waxyaabaha aan ku hamiyi jiray in fankayga iyo hibadeyda aan bulshada la wadaago waana la sii wadaagi doonaa waana hubigayga aniga fanku ma jeclayna shaqo ka dhigto laakiin waa hubigayga waa waxaan iskaga istareexoon iskaga raaxaysto waayahay su-aalaha ku badin mayno daawadayaasha oo qaybaha dambe ayaynu u dhigan doonaa waxaa sidoo kale jirta hees la yidhaahdo najma heestaasaan jeclahay markana inaad cidda muusiga iyo laxanka waxaa la yidhaha najma la yidhaha laxanka waxaa leh tii horena anaa lahaa tan anaa leh laakiin waa layla caawiyey waxaa ila caawiyey musiishkii weynaayey saxadiid SMS inan kale oo isna reer Djibouti labadaa nin baa aad ila caawiyey laakiin run ahaantii anaa furaha keenay oo lahaa isiga waxaa tumay macalinka da'da yaray ma ka soo kacaya Ismaaciil Danan oo isagana halkan aad uga salaameyn leeyahay thank you saaxiib aad baa u mahadsan tahay heestaas waa hees tidcana erayadeedu waana heestii ugu horeysay tidcanan qaado marka dee wada waayahay heestaas najma ayaynu markana ku soo dhaweyn doonaa daawadayaasha
najmay adiga munaasan haween adiga u muuqsan dhiga adiga u magaxsan iyo sharaf loo maqaamsan way najmay adiga munaasan haween adiga u muuqsan dhiga adiga u magaxsan iyo sharaf loo maqaamsan dartaa aniga mashquulsan xusuustaydana la maagsan muxubbawga masuulsan jacaylan ku qaba muraadsan alloway dartaa aniga mashquulsan xusuustaydana la maagsan muxubbawga masuulsan jacaylan ku qaba muraadsan kalsooni mid loo miisaansan xidhiidh meel mar loo muhiimsan kalgacal muxiba loo macaansan gudoonsatayee muhiimsan kalsooni mid loo miisaansan xidhiidh meel mar loo muhiimsan kalgacal muxiba loo macaansan gudoonsatayee muhiimsan najmay adiga mahadsan isaagaba u miirsan macaan keliga macquulsan gacalo adiga marweysan najmay adiga u mahadsan isaagaba u miirsan macaan keliga macquulsan gacalo adiga marweysan mulkiday qalbigii masuulsan maankeed hanatee maciisan mustaqbalkeenana miraysan midaan noqono mataansan mulkiday qalbigii masuulsan maankeed hanatee maciisan mustaqbalkeenana miraysan midaan noqono mataansan way kalsooni mid loo miisaansan xidhiidh meel mar loo muhiimsan kalgacal muxiba loo macaansan gudoonsatayee muhiimsan kalsooni mid loo miisaansan xidhiidh meel mar loo muhiimsan kalgacal muxiba loo macaansan gudoonsatayee muhiimsan way kalsooni mid loo miisaansan xidhiidh meel mar loo muhiimsan kalgacal muxiba loo macaansan gudoonsatayee muhiimsan way kalsooni
miisaansan xidhiidh meel mar loo muhiimsan kalgacal muxiba loo macaansan guddoonsatay muhiimsan waayahay cabdikariin haddaynu heestaasi najmayntaasi kaga nimaadno koleyba daawadayaasha hadalka ku badin mayno heesaha caawa noo yaal ayaa waxay yihiin kuwa macaan isla markaasina aan isleenahay daawadayaasha waraali gelinayaan waxaa kaloo jirta hees la yidhaahdo himlo bal heestaasi iyadana muusigeeda iyo laxankaba waxaa heestana leh abwaanka aan hore usoo sheegan aadka u jecelahay anoo dhammaan abwaaniinta ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ba salaamaya abwaanka da-da yar ee qarnigan la hulin waayey abwaan dhame ismaaciil cabdalle uun aad u salaamay mar koowaad mar labaadba uu leeyahy jiro joog runaantii waa abwaanan aad u ixtiraamo ku qadariyey shakhsiyaddiisa dadnimadiisa marka laga yimaado suugaantiisa laxanka waxaa le heestan fanaankii weynaa cabdicasiis iskalaaji oon aad u salaamay saaxiibkay uun leeyahy madaxaad noo saaran tahay miisig waxa weeye macallinkii weynaa al-ustaad sheega bushaaro waa wada weynaa ilaahay waa weyni ustaad sheega bushaaro miisiga leh luuqduna waa miskiinkaygan yar waayahay heestaasi himilo ayaynu odhan doonaa markanina daawasho wanaag kastoon habeenadan horta seexan waayo halkii aynu ku kulaniyo xusuus higsigeedii kastoon habeenadan horta seexan waayo halkii aynu ku kulaniyo xusuus higsigeedii hawl adduunkuye dantuunimay ay heertay jacayl uu hafinaya hagaran daamuumawaaye hawl adduunkuye dantuunimay ay heertay jacayl uu hafinaya hagaran daamuumawaaye jeeraan himiladaydiyo hamigaygu siduu rabo helo tuu qalbigu rabay marnaba kama hadhi karaaye marnaba kama hadhi karaaye jeeraan himiladaydiyo hamigaygu siduu rabo helo tuu qalbigu rabay marnaba kama hadhi karaaye marnaba kama hadhi karaaye
hawataanugaag wey naftu haybsanaysay hilkii kalgacalkaay wey ilayag leelay hawataanugaag wey naftu haybsanaysay hilkii kalgacalkaay wey ilayag leelay وعن هاني إيجي إيجا قداي إباشا دايب برتاي ولي أن هايبي نياي نان وعن هاني إيجي إيجا قداي إباشا دايب برتاي ولي أن هايبي نياي شيران himiladaydiyo hamigaygu siduu rabo helo tuu qalbigu rabay marnaba kama hadhi karaaye marnaba kama hadhi karaaye jeeraan himiladaydiyo hamigaygu siduu rabo helo tuu qalbigu rabay marnaba kama hadhi karaaye marnaba kama hadhi karaaye السلام عليكم عبد الكريم يري فهانتي صدح heesood iminkaan barnaamijka qaybihii dambe oo ku sii suqayna ku soo marnay saddexda heesoodiba waxa ku jira magacyo hablood magacyada hablada ma doortay abwaanada ka codsan horta runtii saddexda heesood aynu barnaamijka ku soo bandhignayba saddex heesood aniga mid quseeya maaha waa saddex heesood abwaanada ii dhiibay abwaanadeeda quseeya oo iyaga ka hadlayay ay kuna amaanayaan markaa dareenkooda hal kula maray iyo hadba hadii xasuuskooda tahay iyo hadii jacayladooda tahay marka saddexda heesoodba kulley maadaama inaan lagu amaanayo kulley waxa muhiim noqotay in magaceedu lagu xuso wasla wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii wareysiga fanaanka iyo waayaha fankiisa inagoo waliba ku sii siqayna qaybihii u dambeeyay عبد الكريم waxaa jirta hees la yiraahdo waa nuur cala nuur oo isla markaasina hees uu qaadi jiray fanaan عبد الفتاح تعبر عبد الفتاح yare runtii heestaas aan xitaa shaqsi ahaan oo heesan aad u jeclaay marka aan heestaas dhageysanayo ali sawirkaaga laga qariyana waa hees aan isla hadalnayo wali ma عبد الفتاح ba qaaday bal heestaas ayaan jeclahay markan adiga iyo daawadayaasha runtii waa qof aad u wanaagsan fankana miisaaniyo ma kule kulaha aad baan horta ugu hambalyeynay tiisi hore tiisa dambaba wajita heestaa waan qaaday waxaana u qaaday xusuus ahaan iyo maxay tolayna isaga ku xusay waliba taasoo qulaata ma laba kala jira laakiin heesta saameynta sameysay heestaas ay noqotay waayo had iyo jeer fanaanku inuu xuso fanaanintii ka horeysay amba isku waqti ahaadaan amba ka waqtigooda ka horeeyay fanaanka fanka wax fiican taariikh fiican ka jiray inaad xustaa oo mid aad u macquul ah si adigana markaaga lagu xuso عبد الفتاح فنكو حسي دونا وانو تبي دونا وانو تبي runtii فنانين kale waxa jirtay iyaguna aad u qaaliyo in la xusay iyaguna u baahan qaarimka fanka iyagu ku soo biirayo iyaguna waliba adigu عبد الكريم aan ka dhaxgalay waxa ku jirtaa fanaaniinta intay waliba yihiin fanaaniintii u dacdeeraa imika haddana fankii hore ee Soomaalida soo nooleeyo inta badan ku heesaan qaabka leefka ama heesaha loo yaqaan qaaciga intaasna ani laftigeyga waan kugu hambalyeynaa waa maasanta walaaltankiyo heestaa nuur cala nuur عبد الفتاح waxa sameeyay aabihi laxanku waa Mustafa Kiiko miisugna
waxaan malaynayaa inuu ahaa cabdilaahi cantarnaaji aadaya waa yahay heestaasi ayaan adiga daawadaasha idin kala baxaya kunagaadi waayo nodalay naberiyo waxaad tahay naftayday markiyaan naruuroy nasiyaay ku guursaday dumar nabadgeliyaan idhi ii nooli kulantay nabdigayga adiga kunagaadi waayo naberiyo waxaad tahay naftayday markiyaan naruuroy nasiyaay ku guursaday dumar nabadgeliyaan idhi ii nooli kulantay weli maanin niyadaydu waataa neecaw jacayliyo nafis baan dareen weli maanin niyadaydu waataa neecaw jacayliyo nafis baan dareemo waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur waa nuur calaa waa nuur calaa nuur ninkeeday ku noqdaan iblayso shaydaan la nare ha dhegaysta nacaabka dadka hoosta kaganaba weligood naqiyo hadal naxlibay abuuraan nabad guur ka caashaqa marwe iyo ninkeeday ku noqdaan iblayso lanare ha dhegaysta nacaabka dadka hoosta kaganaba weligood naqiyo hadal naxlibay abuuraan nabad guur shacaashaqa weli maanin niyadaydu waataa neecaw jacayliyo nafis baan dareen weli maanin niyadaydu waataa neecaw jacayliyo nafis baan dareemo waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur waa nuur calaa waa nuur calaa nuur waa yahay waa nuur calaa nuur runaantii waa hees qiimaheeda wadata waa tahay daawadayaal waxaa la soo gaadhay guntiga gabagabadii barnaamijkeena ugu dambeyntii intii aan barnaamijka soo xirin cabdikariin ayaan siin doonaa salaanta barnaamijka waa marka koowaad waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaanba waxaan leeyahay jiro jooga waxaan ku xigsiinayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba bari iyo galbeedba waxaan si kale si khaasa u salaamayaa bahda dalsa t v ood adigu ka kow tahay iyo howlwadeennadaada waxaan salaamayaa inta magacayga iyo muuqaygaba taqaanaa waxaan salaamayaa faamiligayga dhammaan waalidiinteyda hooyaday caruurteeda inta aan faamiliga nahay oo dhan waxaan salaamayaa asxaabteeda igu qaaligaa gaar ahaan inta ii dhow ee garbahayga bahda weliba reerita dhowr ban aad u salaamayaa waxaan salaamayaa fanaaniintu meel kastay joogaanba guud ahaan caalam dal iyo dibadba waan salaamayaa inta aanu isnaqaanay intaanaan isaqoonba
qof kastoo fanka ku abtirsada waan salaamaya. waayahay annaguna aad iyo aad baan salaameynaa cid kastoo Cabdikariin garanaysa isla markaasna anagana garanaysa waxaan si gaar ugu mahad celinayaa goobtan quruxda badan leh ee aynu barnaamijka ku qabsanaynay hidda dhowr Maxamed Cadaani iyo sidoo kale Maama Saare Halgan oo ugu sharfay inaanu barnaamijkan quruxda badan leh halka ku qabsano barnaamijka waxaan la socodsiinaysay anigoo Caasha Maxamuud Cadaa intaan ku kulmi doono tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo Cabdikariin kulanti wanaagsan.